saakay subaxdii hore waxaan ku kalahanay dab ka kacay magaalada Muqdisho isgoyska Banaadir ilaa iyo Digfar jidka u dhaxeeya oo runtii aajidadka ugu saxmadda badan xagga ganacsiga ayaan saaka ku kalahanay runtiina waxaan indhaheena aan ku soo aragnay waa wax aad iyo aad looga xumaado oo aad isleedahay meeshan maxaa ka dhacay dhul gariir dhibaato aad iyo aad u weyn oo baahsan ayaa halkaas xalay ilaa saakay dadaal fara badan oo ay sameeyeen dabdamiska gobolka Banaadir iyo dabdamiska Hormuud oo runtii abaal weyn ay u hayaan ganacsatada Soomaaliya rugta ganacsiga dadaalkii ay halkaa ka geysteen oo wixii ay awoodeen ay ummadaas hantidooda intay badbaadi kareen ay badbaadiyeen hayeeshee haddaad tagto jidkaas waxaad arki doontaa haba yaraatee dhibaatada gaartay waa dhibaatadii ugu weyneed abid ee magaalada Muqdisho ka dhacday xagga dabka guud ahaan dukaamada halkaa ku yaalay iyo ganacsiga halkaa ku yaalay waa ay baaba'een waxaana aad iyo aad runtii indhaheena aan ku soo aragnay dadkii ganacsigaas iska lahaa oo meeshii dukaankoodu ku yaalay meel cidla ah fadhiya ama hal baakad ama hal gasaxad oo u harayna ay ka ilaashanayaan dad raba inay ka faa'iideystaan oo ay xatooyo halkaa ka geystaan hase yeeshee booliiska Soomaaliyeed ayaa aad iyo aad runtii u gacan qabanaya kan ilaalinaya inay dhibaatadaas ay dhacdo waxaan aad iyo aad isugu daynay inaan indhaheena ku soo qiyaasno wixii meeshaas hanti ku baaba'ay hantiduna waa dhowr nooc hantida ugu daran waxa ay tahay guryihii ganacsiga oo ka socday oo dhamaantood dhulka ku darsamay ma hayno runtii wax geeri ah oo noo sheegay iyo dhaawacyo culus runtii waxa kale oo baaba'ay oo maanta aad islaada meeshan waxba kuma oolin oo asaaska xataa la waayay guryo waaweyn oo ganacsi ka socday hantidii meeshaas taallay oo baaba'day dadkii iska lahaa hantidaas oo maanta faramaran oo dadkii u shaqeynaya ayaga bariis wax meel ay u kalahan aan la arag sidaas darteed qiimeyn degdega oo aan ku sameynay dhibaatada halka ka dhacday kama yara lacag aan 30 milyan aan ka yarayn ayaa halka dhibaato ay ku gaartay weydiintu waxa ay tahay ganacsiga Soomaaliya caymis kuma jiro waa mushkilad aad iyo aad u weyn oo 10 sano ee u dambeysay ganacsatada Soomaaliya aan kala hadlaynay oo ah in ay ganacsatadu u baraarugaan in ay galaan hantidooda ay geliyaan caymis waayo oo kaliya xataa ma ahan in inta leeg ay baaba'do in caymiska markaas oo wax taray xataa wuxuu caymisku wax ka taraa hadaa khasaartid xataa caymisku waxba ka taraa oo aad khasaaro la cadeyn karo aad ula tagtid shirkadaha caymiska ee magaalada ka furan waxaan rabnaa magaca rugta ganacsiga Soomaaliyeed anoo ku hadlaaya rugta ganacsiga Soomaaliyeed magaceeda ahna agaasimihi guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed aad iyo aad baan waxaan uga xunnahay dhibaatadii ka dhacday halkaas waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanaynaa dadka Soomaaliyeed aan caymiska lahayn waxa caymis oo ah dhaqankooda caymis oo ah Soomaalidu dhaqanka ay isku caymidaa nin shalay haystay lacag aad u fara badan business balaaran ayaa maanta gacmo maran qof guri ku lahaa halkaa oo gurigiisa kira loogu jiray oo ganacsi loogu jiray ayaa gurigiisa maanta dhulka uu ku darsamo oo baaba'ay dadka waxay u jeedaan ganacsiga gubtay kaliya laakiin guryaha ijaarka loogu jiray halka ku yaalay 80% waa ay burbureen waana ay baaba'een sidaa darteed magaca rugta ganacsiga anagoo ku hadlayna waxaan aad iyo aad uga xunnaa wixii meeshaas dhacay waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed ee ganacsatada guud ahaan inay isaga yimaadaan kana fakaraan war haday dhibaatadaani dhacdo maxaa hal ah ma ahan kaliya dabka waxa dhici karta inuu wax khasaaraan waxa dhici karta wad ogeedin hadda ka hor maraakiib baabadaha ku maartay runtii dagaaya oo hantidii ay ku baaba'aysa halkaas dhibaatooyin fara badan ganacsiga mar walba ku imaan kara caalamka horumaray iyo kan horumaraya iyo kuwa anaga la midka intaba sidoo dadka Soomaaliyeed inay ka fakaraan la rabaa sidii ay isu caymin lahaayeen oo ay hantidooda marka ay wax gaarto ay meel caymisa oo ay u dhaqaaqaan ay u heli lahaayeen inta ka horeysa oo la isaga imaanayay ummadda Soomaaliyeed dhaqan waxa oo ah in ay ayagu is caawiyaan oo ay isu soo gurmadaan sida darteed waxa meesha ka dhacay waa gurmad mudan in qof kasta oo mas'uul ah oo cagihiisa ku tago indhihiisa ku soo arko waxa meeshaas yaala
aad iyo aad baan walaalayaal uga xunnaa wixii dhacay indhahanagaanan ku soo aragnay karaankeenna wixii ahna haddii alla idmo qalbiga ayaan idinkala jirnaa waa ku dadaalaynaa wixii aan qaban karno inaan qabanno aadaadna u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq